madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu muuqdaa siyaasi fahmay habdhaqanka dadka degan caasimadda iyo gobolada u dhow oo ay madaxdii hore u muujin jireen nugeel dheeri ah. aaminada madaxweyne Farmaajo ee la xiriirta dawladda dhexe awood leh waa mid aan qarsooneyn, laakiin dadka qaar waxay ula muuqataa mid shaqayn la. waa macquul inuu waqtigu ku yar yahay iyo inaan markii hore loo diyaar garoobin caqabadaha arrintan ka imaan kara, laakiin madaxweyne Farmaajo weli uma muuqdo in dib uga laabto damciisii federaal diidka ahaa, ama haddii aan si kale u dhigno federaal daciif ah oo dadka jooga ama madaxda ka ay yihiin maamulayaal dhaga fudud. go'aanadii dawladdiisa ku qaadatay inay gacanta ku dhigta maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxay u muuqdaan taabagal lagu macaashi doono maalmaha doorashada. haddana Hirshabeelle ayuu u wadaa isla jihadaas. saddexdaas maamul goboleed ayaa dad ahaan iyo dhaqaale ahaanba ku tiirsan caasimadda, laakiin doorashadii Galmudug iyo Koonfur Galbeed labadaba dhiig ayaa ku daatay. dhowr maalmood ayaa la diiday natiijada, laakiin ugu dambeyn waa la aqbalay, waxayna maanta go'aan weyn ku leeyihiin doorashada guud ee qaranka. Hirshabeelle isla dhabahaas ayay ku socotaa oo si walba oo maamulka ku yimaado waxay heli doonaan aqoonsi. madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ololo waxay ku naaloonayaan saddex ujeedo oo laba ka mid ay si wanaagsan u shaqaynayaan. midda koowaad waa inay gacanta ku dhigaan dawlad goboleedyada nugul iyadoo dadka la dul saarayo hogaamiyaal aanay raalli ka ahayn balse aqalkii u shaqayn doona filla Soomaaliya. midda labaad waa hirgelinta falsafadooda dawlad goboleedyada u hoggaansan dawladda dhexe ee magac ahaan u jira. midda saddexaadna waxay la xiriirtaa doorashada federaalka. midda la xiriirta doorashada federaalku waa midda lagu ogaanayo inay si dhaba u dhaqan galeen labada qorshe ee kale. dhowaan waxaa la soo saaray guddiyada doorashada ee heer federaal, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. saddexda maamul goboleed ayaa dhammaan faafiyey liis loo dhiibay oo ay qortay dawladda dhexe. madaxweyne Waare oo albaabka ka sii baxaya ayaa lagu xamanayaa inuu isfaham maaliyadeed ku sameeyey liiska. laakiin Cabdicasiis Laftagareen iyo Axmed Qorqor waxay gudayaan abaalkii uu Fahad Yaasiin u galay markii dadkooda oo diidan loo gacmo qabtay. dad badan waxay filayeen in aan la aqbali doonin natiijooyinkii doorashada ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo ay mucaaradku si weyn u diidanayeen, laakiin siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba waa la marsiiyey ugu dambeyn. dawladda madaxweyne Farmaajo waxay hadda dhisaysaa Hirshabeelle oo isla buuqaasi ku jirta, waxayse haysataa tababar wanaagsan oo ah inaan qofna loo joojin qayladhaantiisa, ugu dambeynna ay wax walba shaqayn doonaan. filadu waxay isticmaalaysaa jumladda ah baroortu waa asbuuc. sida muuqata madaxweyne Farmaajo wuxuu falsafadiisa shakhsiga ah ee halka awood ku dabaqay laba maamul goboleed oo hadda ka shaqaynaya sidii mar labaad isaga loo dooran lahaa. 11 bishan oo Arbacada ku aadan wuxuu dhisayaa maamulkii saddexaad oo uu qaabeeyay sidii kuwii hore. wejiga koowaad ee arrintaas ayaa u shaqaysay sidii ay rabtay dawladda dhexe, iyadoo guddoonkii baarlamaanka Hirshabeelle ay ku soo baxeen dhammaan xubnihii ay rabtay madaxtooyada Soomaaliya. habka loo maray dhismaha dawlad goboleedyadu waa inaan cidna loo joojin qayladhaanteeda, taasoo aqalkiina lagu guulaystay. siyaasadda guud ee qaranka waxaa ka jirta dood weyn oo ka dhalatay guddiyada doorashada ee ay soo magacaabeen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. mucaaradku si weyn ayay ugu hor yimaadeen guddiyadan. qaarkood ayaa isbuucan isugu tegaya magaalada Nairobi, kadibna waxay tegi doonaan gudaha dalka halkaas oo la filayo inay go'aamo waaweyn ka soo saaraan. buuqa mucaaradka ayaa la xiriira dhalinyarada loo igmaday inay maamulaan guddiyada doorashooyinka oo u badan shaqaalaha dawladda, taliska NISA iyo jamaahiirta madaxweynaha ee la baxay xoogga wadaniyiinta. mucaaradku qayladhaan badan oo ay ka sameeyeen dhismihii maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug cidna uma joojin. madaxweyne Farmaajo wuxuu u nool yahay sida qof aan maqlin shanqarta kuwa diidan, ama haddii uu maqlaayana aan jawaab u haynin. muranka doorashada guud ee qaranku waa ka weynaan doonaa arrimihii gobolada, laakiin lama yaqaano inta ay gaari karto. madaxweyne Farmaajo sidii looga bartayba kama soo laabto halka uu u socdo ilaa inuu gaari waayo maahane. loomana malaynayo inuu si fudud ku joojin doono qorshihiisa iyo inuu aqbali doono inuu bedelo guddiyada doorashada isagoo tixgelinaya cabashada mucaaradka. haddii sidaan lagu galo doorashada oo ay shaqeeyaan guddiyada hadda magacaaban, waxaa si weyn la isugu raacsan yahay inuu madaxweyne Farmaajo ku soo laaban doono xafiiska oo dib loo dooran doono. waxaa jira shaki ah inay madaxtooyadu doonayso inay soo celiso damaceedii muddo kororsiga oo ay rabto inay xiisad cusub abuurto si waqtigu u jiitamo oo loo raadiyo xal kale. maxay kula tahay adiga? ma isleedahay madaxweyne Farmaajo waa u joojin doonaa qayladhaanta mucaaradka? fikirkaagu waa muhiim.